Come with me to explore Mogadishu's old city, Hamarweyne. Nestled along the Indian Ocean, Hamarweyne is a living, breathing museum of Somali history and resilience. This ancient city has roots back to the era of the Prophet Muhammad ﷺ, and some traditions even connected back to the Suleiman kingdom. Officially developed under the Islamic Caliphate around 600 AH after Hijrah, Hamarweyne quickly rose to prominence as a center of trade, scholarship, and faith. Some of the buildings still standing today are believed to be over 1,000 years old, their age telling stories of time and turmoil. Contrary to stereotypes, these weathered walls and crumbling facades aren't signs of neglect, but testimonies to survival. As we walk these historic streets, we pass by two landmarks, the Tomb of the Unknown Soldier, a tribute to sacrifice, and Lido Beach, where the past meets the present in waves of beauty and life. Hamarweyne isn't just a place, it's a portal, a reminder that Mogadishu's soul stretches far beyond what headlines can show. qofka tuubooyin baa la geliyaa dhiigga iyo dhacaankii ka soo saara marka ugu horeysa la qalo tuubooyinkii baa caloosha ka soo qaaday waa dhiigga iyo dhacaanka isaga ka sheekeynaya aan ka dhageystano markaas dhakhtarkii baa loo sheegay dumarkii mumridaadka ama narsiska u sheegeen oo yiraahdeen tuubooyinkii ma soo qaadayaan dhiigga iyo wixii dhakhtarkii wuxuu yiri amaliyadii dib loogu celinaya wuxuu yiri gabadh kamid ahayd gabdhihii waarka ka shaqeynaysay dhakhtarka ka shaqeynaysay سواء مرتين وحي تري صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد رسولك صلي سبدي نبي قاعد وصل صلى الله عليه وسلم والله مركا يجا تكتيب يري ودختركي لو مقنع دقيقه يجا سو راغ دور 10 دقيقه ولا 20 markii uu soo noqday mise tuubooyinkii saas u sii deynayaan dhacaankii dhiigii wixii baa wadaanba marka qofku ka sali badan yahay nabiga waa loo geenaya hebel rasuulka ilaahayow inta soo jeer buu kugu soo saliyay baa la dhahayaa salaatu alayhi wasallam alayhi soo ayaan darama aha 24 saac warkaaga la qaadinba oo nabiga ku sallallahu alayhi wasallam faa'iida laga helay waxa kamid ah nabigu tilmaamay man salla alayhi salatan waahida 10 jeer baa la ku saliyaa وحط عنه 10 خطيئات 10 ذنبنا إلهي وكقضادية ورفعت له 10 درجات 10 درجنا إلهي واسيا سبحانه وتعالى صومك كمد مالمه سكل الدوان صومك سنها صدح بشي بصدح محمد إن لقى صومه رمضان تسون كذا أبواب خير كمدا لحد عشاء شوال كمدا صومك عرفة كمدا يوم عاشوراء صوم كذا كمدا قفك صوم من أفورنتيسا كمدا هبين ليلة القدر كل كذا كمدا هبين كوتشيرت صدقة أي واحد بحنته يديق ذا كمدا ورسول صلى الله عليه وسلم وحيورن شري الصدقة تطفئ الخطيئة صدقة قفك يدم يقفك دعوي دميسا كما تطفئ الماء النار صدبك بيه دمي وكله أسماء مركو لها اللي وحكور يا أسماء لا توكي فيوكي الله عليك أسماء ويل كذا ديقلي صدقة يحب حنت ها كاف حدين يا إلهي ديقلي سكاف حدين سمعوا حكومة